wasaaradda gargaarka ee maareynta musiibooyinka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shirka tubta horumarinta arrimaha bulshada waxa ay ku soo bandhigtay qorshe loogu gurmanayo haddii abaar ka dhacaan deegaano ka mid ah dalka. wasaaradda ayaa samaysay guddi ka kooban 9 wasaarado oo xukuumadda ka mid ah iyo wasaaradaha gargaarka dawlad goboleedyada si loogu diyaar garoobo in dhaqso loogu gurmado haddii ay abaar dhacaan dadka ay saameysay. shirka uu maanta gudoomiyay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay siyaasadda dalxiiska oo ay soo diyaarisay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska. wasaaraddu waxa ay soo bandhigtay maanta qorshe iyo nidaam loogu hortagi karo haddii abaar dhacaan halkii ay awal abaaruhu marka ay dhacaan oo la sameyn jiray gudiyo in la sameeyo. hadda waxaan sameynay haddana wasaaradda gargaarka ee maareynta musiibooyinka guddigaas oo ka kooban wasaaradaha xukuumadda nabad iyo nolol. waxaa ka mid ah guddigaas wasaarado ilaa 9 wasaaradood ah: wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda caafimaadka, wasaaradda beeraha, wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka. waxaa kaloo ka mid ah maamul goboleedyada wasaaradaha ka jira, wasaaradahaas oo ah wasaaradaha gargaarka iyo maareynta musiibooyinka. guddigaas oo isku dhufan, guddigaas oo ka shaqeynaya dalka. ilaahay nuguma wakeenee haddii abaar ka dhacaan iyo haddii fatahaad ka dhacaan halkii marka ay dhibtu timaado la ordi jiray. hadda waxaan sameynay qorshe iyo balaan ah in inta dhibtu intayna dhicin in aan keenno qorshe iyo balaan. wasaaradda ayaa keentay maanta qorshahaas. aad iyo aad baa golaha loogu falanqeeyay, su'aalo badan baa la iska weydiiyay. qorshahaasuna wuxuu ku dhamaaday guul iyo gobonimo. waxa kale oo la keenay golaha maanta wasaaradda caafimaadka ayaa waxay keentay warbixin ku saabsan cusbitaaladii ay la wareegtay. ayaa waxay ka keentay iyaguna warbixino aad iyo aad u qurux badan. warbixinahaasaa lagu soo bandhigay bartaas. waxa kale oo maanta tubta la keenay wasaaradda shaqaalaha iyo arrimaha bulshada ayaa iyaguna waxay keeneen guddiga shaqaalaha rayidka ah ayaguna waxay ka soo jeediyeen PlayStation. waxa kale oo maanta la keenay barnaamijka isxilqaan oo meesha uu marayo. barnaamijka isxilqaan hadday noqoto masxafkii, hadday noqoto tiyaatarkii, hadday noqoto taalooyinkii, iyagana waa la keenay maanta. waxaa laga soo jeediyay warbixin aad iyo aad u qurux badan. wuxuuna ku soo dhamaaday shirku. xukuumadda federaalka Soomaaliya oo mas'uuliyad ka saaraysa badbaadinta muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa guddiga gurmadka abaaraha uga hortagaysa in la sameeyo guddi degdeg ah kadib marka ay dhacaan abaaraha sidii horey u dhici jirtay. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.